waxa marka hore ilaahay ayaa mahadle lagu mahadnaqo inagoo maanta wada caafimaad qabna in maanta ay bishu tahay 16 November aan halkani aan ka jeediyo mahadnaq iyo wixii koobaaba ee kalaba waxa aan marka horeyse aan u mahadnaqayaa dadweynaha reer awdal dhammaantoodba ee kala degan marka laga soo bilaabo jufada ilaa iyo loo yacdo waxa aan kala u mahadnaqayaa dhammaan dadkii aanu ka wada shaqeynay 22 cisho ee lagu jiray ololaha campaign-ka doorashooyinka dadkii la shaqeeyay iyo dhammaan taageerayaashii intii volunteers-ka ahayd ee iyagu na garab ordayay si ay noogu hirgasho ololihii banaanbaxa lagu muujinayay cudurda xisbiga kulmiye ee gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama waxa aan mahadnaqaasi guud ahaan rag iyo dumar xooliyo caruurba aan ugu mahadnaqayaa sida weyn ee noo taageereen noogu soo baxeen loo tusadkii ugu weynaa ee ka dhacay magaalada Boorama iyo dhammaan degmooyinka kaleba waxaan leenahay inteedii abaabishay intii ka shaqeynaysay dhammaantood lagu daro qoladiinan saxafiyiinta maxaan ku raadayay dadka xisbiyahanka dadka taageerayaasha in aan maanta si fiican aad u qabateen noola shaqeyseen u muujiseen magaca kulmiye xisbiga maanta aynu nahay anigoo gudoomiyihii ololaha campaign-ka ee gobolada galbeedka waxa aan mar labaad iyo mar saddexaadba dadweynaha u sheegaya in ay noogu dhacday si nabadgelyaha ilaahayna loogu mahadnaqo oo ta koobaada haddayna nabad jirin inayna waxaas inoo hirgaleen imikana waxaan ugu baaqayaa in aan adkayno nabadgelyada aadna u adkayno wixii alla qoray wuu dhici doonaa wixii ka soo baxay natiijada waxa sheegi doona waqtigeega guddiga doorashooyinka oo aan ka hor dhici maayo waxaan leeyahay siday doontaba ha ahaatee dadka reer Awdal waxaan ku boorinayaa in nabadgelyada la ilaaliyo nabadgelyada inoo tana nin kastaba wuxuu u jeclaa iyo xisbigii u jeclaa uu ku riday uu u footeeyay way u dhamaatay wax inta dhaafsan in dhibaato inooga timaado iyo in la isku qabsado iyo in maartay meesha ka bilaabmasta looma baahna ha tusina dhalinyarta iyo dadka yaryar in aan xumo gelino calal xumo gelino inaynu walaalka walaalnahay laakiin waxaan ku kala duwan tahay ay noqoto mabda'ana jawaabteedii waynu bixinay nin kastaba meeshuu rabay ayuu foodkiisii ku riday sida loogu riday sideeda quluxda badnay ee maanta adduunyadu naga soo dheehanayso ee ku doonayno mustaqbalka dalka siiba dadka dhalinyarta mustaqbalkooda wuxuu ku xulayaa maanta wanaag ku dhamaato sidii ay horeba ugu socotay in maantana ay wanaagaasi ay ku dhamaato si aan u gaarno himiladeennii koobaad oo ahayd ictiraaf in laynagu ictiraafo si aynu u gaarno horumarka adduunyadu noogu soo jeesato aan ka mid noqono maxaan ku leeyahay dadweynaha adduunka maanta ee iskugu tagay qaramada midoobay aan kursiga soo fadhiisano si aynu u gaarno himiladeennii kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku xiran tahay inagu saan u shaqaysanay dadaalkeena maanta waxay ku xiran tahay in aynu nabadgelyadii aan ku dhamaynay aan maanta ku tusno adduunyada waan ku faanaynaa waan maartay adduunku inoogu soo jeedaa waa layna eegayaa waxaan dadka reer Awdal iyo dhammaan Somalilandba meel kastoo la joogo waxaan leenahay way naga dhamaatay waxaynu sugaynaa waa natiijada kii alla siiyo ayaa kursiga ku fadhiisan doona ilaahay idankiina way soo bixi doontaa ilaa bisha 18keeda waanu naawuleynaa waanu sugaynaa laakiin dadka reer Awdal siiba magaalada Boorama waxaan leenahay xasiloonida hal ilaaliyo walaalnimada iyo kalgacalka hal ilaaliyo hal lagu dhamaysto si aan dhibaato inooga imanin waxaan mar labaad u mahadnaqayaa